waayo daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu dambeeya naga soo gaaraya magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway iyadoo wararkaasna ay sheegayaan in dowladda wadanka Norway ay go'aansatay in dalkeeda ay ka eriso 15 kamid ah diblomaasiyiinta ka shaqeeya safaaradda dowladda Ruushku ay ku leedahay magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway. warkan oo dhawaanaha ka soo baxay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda wadanka Norway ayay ku sheegeen in ay go'aansadeen 15 kamid ah shaqaalaha safaaradda Ruushka ee ka shaqeynaya magaalada Oslo in ay si degdeg ah iskaga baxaan wadanka Norway iyadoo sababta ay uga dhigeen ay tahay in ay ahaayeen 15 qofood sida ay sheegeen dad basaasiina oo u shaqeynaya dowladda wadanka Ruushka balse aan ahayn diblomaasiyiin ka shaqeynaya safaaradda Ruushka ku taala magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway. go'aan qaadashada ay mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda wadanka Norway ay ku sheegeen in ay ahayd go'aan ay gaareen kadib markii ay in muddo ay sameynayeen baaris ku saabsan 15 qofood oo kamid ah 40 qof oo ka shaqeeya safaaradda Ruushka ee ku taala wadanka Norway. arrintan ayaa imaanaysa sida ay sheegeen mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda dalka Norway inay in muddo ay ku daba joogeen 15 qofood ee guud ahaan shaqaalaha ka shaqeeya safaaradda Ruushku ay ku leedahay magaalada Oslo ee xarunta wadanka Norway. waxa ay sheegtay wasaaraddu in ay yihiin 40 qofood 15 kamid ah ayaa lagu helay bay leeyihiin in ay yihiin dad aan diblomaasiyiin ahayn oo basaasiin ah una shaqeynayay dowladda wadanka Ruushka isla markaana markii la yiraahdo arrinta haday timaado basaasiin waxay basaasiina dareemi kartid ama aad fahmi kartid arrimo markaas saameyn ku yeelan kara wadanka Norway ama siyaasaddiisa ha noqoto ama guud ahaanba arrimaha kala gedisan bulshada dhaqaalaha siyaasadda iyo guud ahaan nolosha iyo xagga ciidankaba oo ay markaa u arkaan dowladda wadanka Norway inay dadkani ahaayeen dad aan diblomaasiyiin ahayn oo ahaa basaasiin u shaqeynaya dowladda wadanka Ruushka. si guud marka loo fiiriyo waxaa xusid mudan inaysan ahayn markii ugu horeysay ee dowladda wadanka Norway ay qaadato go'aan noocan oo kala ayna horay u eriyeen 3 qof oo kale oo u dhashay dalka Ruushka taariikhdu markay ahayd bishii April ee sanadkii tagay 2022 marka maaha markii ugu horeysay sanadkii tagay 2022 isla bishan April oo kale sanadkii hore markay ahayd ay dowladda wadanka Norway waxay wadankeeda ka erisay 3 qof oo u dhashay wadanka Ruushka sanad kadib oo sanadkuna 2023 nimanku ku jirno bishan Aprilna ay dowladda wadanka Norway ay go'aansatay 15 kale oo u dhashay wadanka Ruushka inay dalkeeda ka eriso iyagoo inta ku eedeeyay inay yihiin basaasiin u shaqeynaya dowladda wadanka Ruushka. dowladda wadanka Ruushka ayaa jawaab kulul oo cara leh ka bixisay go'aanka dowladda wadanka Norway iyadoo mas'uuliyiinta safaaradda Ruushka iyo waliba mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushku ay sheegeen in go'aanka dowladda Norway uu yahay mid ka fog saaxiibtinimada labada dal ayna sidoo kale dowladda wadanka Ruushku ay jawaab ka bixin doonto go'aanka dowladda wadanka Norway. maaha markii ugu horeysay inuu aragno sanadkii hore ayay dhacday sanadkan ayay dhacday Ruushku markaa waxay leeyihiin uma dul qaadan doono tilaabadan iyo go'aankan qaadateen waa mid ka fog saaxiibtinimada labada dal oo waliba wadamadan yihiin wadamo daris ah Norway iyo Ruushka isla markaana xiriirkooda ay saameyn ku yeelanayso mas'uuliyiinta Ruushkuna ay leeyihiin jawaab ayaynu ka bixin doonaa go'aanka ay qaateen mas'uuliyiinta dowladda wadanka Norway. haddaba si guud marka loo fiiriyo wadamada Ruushka iyo Norway ka sokow inay xuduud wadaagaan arrintan waxay ku noqonaysaa caqabad hor leh oo saameyn ku yeelan karta guud ahaan xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyadoo dalka Norway sidaan ognahay uu kamid yahay wadamada ka tirsan isbahaysiga NATO isla markaana sanadkan isbahaysiga NATO uu sii ballaartay oo lagu soo daray wadanka Finland oo kamid ah wadamada iyaguna ku yaala dhanka waqooyiga qaaradda Yurub taas oo aan ognahay in dowladda Ruushku ay hore uga jawaabtay isla markaana ay sheegeen inay isha ku hayn doonaan xiriirka iyo waliba xuduudda ay la wadaagaan wadanka Finland. marka Norwayna waxay ka tirsantahay isbahaysiga NATO saameyn ayay ku yeelanaysaa xiriirka labada dhinac iyo labada dalba. waxaa kaloo xusid mudan in dowladda Norway kaliya aysan ahayn balse wadamo dhowr ah oo qaaradda Yurub ka tirsan ay iyaguna horay u eriyeen qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dowladda wadanka Ruushka ee wadamadooda ka howlgalayay. wadamadaas ayaa waxaa ka mid ah wadanka Netherlands wadanka Austria iyo Estonia oo iyagu ka wada tirsan ama ku wada yaala qaaradda Yurub isla markaana wadanka Norway kaliya aysan ku ekeen. arrintan ayaa sii kordhaysay tan iyo dagaalka Ukraine markuu dhacay wadamo dhowr oo ku yaala qaaradda Yurub ayaa diblomaasiyiinta Ruushka eriyay iyagoo arkayay inay diblomaasiyiinta si badan oo kamid ah yihiin basaasiin isla markaana
ay ka eriyeen oo Norway ma aha markii ugu horreysay ay samaynaysa arrintan hore u samaysay waxaa kale hore u sameeyey waddanka Netherlands waxaa hore u sameeyey waddanka Austria waxaa hore u sameeyey waddanka Estonia oo dhammaan ah wadamada ku yaala qaaradda tan Europe isla markaana u moodid in ruushku arrintan u arko dagaal ka dhana markay timaado arrimaha siyaasadiisa ku wajahan guud ahaan qaaradda tan Europe ama wadamada kale ka tirsan isbahaysiga NATO saameyn ballaarana ku yeelanaysa xiriirka labada dal khaasatan wadamadan dariska ee Norway iyo ruushka haddii wuxuu kusoo kordhanaya haddii beedmo barnaamijyadeena dambe iyo wararkeena dambe aanu kula socodsiin doono oo aad kala socon doontiin telefishinkeena Global Somali TV hadda sida xaaladdu noqoto haddii beed